hore wasaaradda boosiga iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgal kana tirsanaa xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ayaa mar ugu waramiyay telefishinka Star magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga muxaafidka ee Kulmiye kuna biiray xisbiga mucaaradka wadani isagoo ka hadlayna wuxuu yiri si muglo uga cadeynaya in aan si buuxda uga baxay xisbiga talada haya qaranka Soomaaliland Kulmiye inta in la midana aan ku wareegay xisbiga mucaaradka ee wadani sababaha iyo aan afkaygana dhowrsanay runtii in badan la haraya xilliga xafladaha iyo hawlaha la qaban doono sababta aan arrinka uga baxay waxaan kaliya ka sheegi karaa imika qaabka uu wado ololaha ee doonay Kulmiye ee doonayo xilka qarankan inuu ku hanto waxa ugu horeeya yaa ree hebelay iyo dagaalkana qaadnay oo waxa naga difaaci hadii xamar inoo soo weerarto runtii marka intaas kaliya aynu eegno waxaan u arkay inaan maanta ree hebelaynaan u baahnayn cid isku keen wada oo inteeni ka soo go'day ka soo noqotay Soomaaliland Soomaaliya ka soo noqotay taladoodii arrinkoodii la soo wareegtay cid si kala gogooyo runtii way la adag tahay yaa dagaal baan qaadnaana waxaan u fahmay dalku wuxuu u baahan yahay waxay noo dhisan ciidan qaran 27 sano 26 sano dhusaynay darajadiisii iyo wixii waynu kala qaybinay kuwa siyaasadii lagu hagi lahaa ee dhaqaalahooda iyo horumarkooda looga shaqeyn lahaa madaxweynihii wax ka qaban lahaa baynu dooranaynaay madaxweyne dagaal ima de furun kala inaynan u baahnay baan yaalkaan iga muuqatay sidaa darteed waxa yani aan istoor biday in xisbigaasi aanu u istaahil ku ahayn hanashada qarankan hogaamintiisa looga fiican yahay dhanka kale Maxamed Jaamac Abgal wuxuu diray 3 fariimood dabeedna 3 fariimood oo kaliya ayaan diri lahaa oo kooban mid waxaan u dirayaa ugu horeysa dadka taageerada isiya taageerayaashayda amba aan ka filayo inaan cod uga soo kordhiyo xisbigan aan ku wareegay waxaan leeyahay oon filayo intooda badan inay iga horeeyeen oo si joogan xisbigan anigu maanta aan ku wareegayo aan u maleynayo inta hadayna waxaan leeyahay xaq baa igu leeyihiin inaad qanciyo inaad ila aragtaan sababtaan ku kala doortay labadan xisbiyan talada maanta ku loolamaya sababtaan mid u doorbiday inaan idin dul joojiyo ila aragtaan oo idin qanciyo ila qanacdaan ila taabataan waxaan ku arkay xaq baa igu leeyihiin diyaarna waan ahay qodobka labaad waxaan fariin u dirayaa ragga safka koowaad ku soo jira xisbiyada waxaan leeyahay ay iyo aflagaada inaga reeban ma dhacayso ay iyo aflagaado inaga reeban dagaha ummadda aynu codka weydiisanayno inaan wax maqashiino aynu taa ka tanaasulo iska dayno qodob fariin saddexaad waxaan u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay hadaynu dhammaanteen isku tagno oo aynu saddexdan mid isku raacno dhammaanteen inaan codka siino oo aan ilaahay inaga aqbalin ma imanayo cod kale ma helayo saadarteed waxaan leeyahay nin walba cid doonaha raaco la iyaan la isku nicin yaana la isku karaahaysanna yaana la isku nicin idii ilaahay talada u garto ilaahay inaan weydiisano ilaahu ninkii noo khayr leh ilaahu noo door mooyee inaynan la isku nicin oo ummadda ku karin Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa